maanta halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayno laba qodob. qodobka koowaad waxaan ummadda Soomaaliland ku wargelinaynaa booliis ahaan in xalayto magaaladan Hargeysa lagu dilay dable Cabdillaahi Cali Axmed oo ka tirsanaa qaybta booliiska bariga Hargeysa ama saldhigga booliiska Macallin Haaruun. askariga eedeysanihii dilay gacanta lagu soo dhigay booliisku waana xidhan yahay kiiskiina waa la baarayaa. ninka dilka ku eedeysanay ma fakan in badan baa la raadiyay xalayto saaka soo dhawaadkii baa la qabtay CID ku xidhan yahay kiiskiisina waa la baarayaa. maxkamadaana loo gudbinayaa biri ama maanta ama biri cidii danaynaysa sidaa hawlo socoto kiiskaas wax maqanin ma jiraan marag baa jiray. arrinka kiiskaas waa ka waxaanu leenahay Allah u naxariisto marxuum dable Cabdillaahi Cali Axmed isagoo shaqo ku jiray dhintay oo gacan ka xaqdarin dishay garsoorkaana la marinayaa eedeysanaha u xidhan. waxaan intaa ku darayaa dilka ilaa hadda sidaan loo aragno dilka askarigaas waa dil caadi u dhacay dilalka kale siday u dhacaan kama muuqato in qabiil loo aanayay ama loo dilayay qabiil ama wax kale sida baaristu muujinayso. waxaan halkaa ka digaynaa dadka si kale wuxuu dhigayay qabiil baa loo aanayay loo dilay arrinta waxba kama jiraan. booliiska Soomaaliland askariganu isagu ka tirsanaa cidda koowaad ee uu ku xaq lahaa inay u qabato gacan ku dhigla waa booliiska waana loo soo qabtay gacan adag baa lagu soo dhigay. cidii si kale u sheegaysa ha ka baxdo taa eedeysanayna maxkamadda la horgeynay. qodobka labaad ee halkan ka hadlaya raacinayo waxa weeye arrin ama dhacdo maalmahan meediyaha la wadwado arrinta Sahre Ismaaciil Haaruun. inantaa Sahre Ismaaciil Haaruun report bay keentay ay tiri niman bay afduubay oo jirdiligu sameeyay. booliisku inantaa uu yeeray saldhigga la keenay saldhigga booliiska qurac dheer waxba lagu weydiiyay iyana waa la soo gudbiyay ilaa CID baa la geeyay waxba laga qoray. kiiska baaristiisi way socotaa iyada wixii looga baahan yahay inay sheegto tilmaan la raaco si loo cadeeyo kiiska oo raadadkii traceski ama clue waxa la yiraahdo la helo. waxay sheegtay nimanka afduubay inaanay garanayn gurigii la geeyay inaanay garanayn marka marag iyo cadeyntu liidato sidaas oo kale booliiska waqti dheer bay ku qaadataa. dadka arrinka wadwada ha ogaadaan inaanu booliisku dadaal yaraysanayn. taliyaha ciidanka booliiskuna amar adag ka bixiyay ama booliiska saldhigyada ha ahaato ama CID ha ahaato ama qaybaha booliiska wardoonka ha ahaato intuba baaristeeday ku jiraan. natiijo wixii ka soo baxana ummadda waa u soo bandhigi doonaa haddii la yiraahdo. taana waxaan leenahay ummaddu ha ogaato in gacanta lagu hayo Sahre Ismaaciil Haaruunna muwaadiniinta qaaliga ah ee loo shaqeynayay ciidanku u adeegayay ka mid tahay waana gabadh sharfan inaanu natiijo ka gaadhno kiiskeedu cadaadana booliisku jecel yahay.